taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa ka hadlay dhibaatooyin muddooyinkan ku soo badanayay qabuuraha dadka lagu aaso taasi oo ku aadan in ay buuxsantay qabuurahaasi iskool buluusiya ee dadka lagu aasi jiray isla markaana lagu arkay meedad si qaldan qabri hore loogu aasayo sidaas daraadeed wuxuu taliska u mamnuucay in meyd dambe lagu aaso qabuurahaasi taliska ciidanka badda iyo difaaca xeebaha Soomaaliya ayaa ka joojiyay ama ka mamnuucay bulshada Soomaaliyeed inay keenaan meyd ama ay ku aasaan qabuurahaasi oo ah goob ciidan oo aan loogu talagelin in loo adeegsado qabuuraha dadka lagu aaso taliyaha dugsiga tababarka ciidanka badda Soomaaliyeed Gaashaanle Maxamed Mahdi Cubeyd ayaa ka hadlay ujeedada loo joojiyay in lagu aaso qabuurahaasi meedadka anagoo tixraacaya amarka taliyaha ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waxaan dadweynaha baraandir ahna taliyaha dugsiga ciidanka badda iyo difaaca xeebaha waxaan dadweynaha baraandir degan u ogeysiinaya in la joojiyay qabuurihii u dhaxeeyay dugsiga ciidanka badda iyo difaaca xeebaha iyo badda inta u dhaxaysa ood arkaysiin idinka naftiinna inay saddex isu dul saaran yihiin in la joojiyey loonaan soo qaadi karin wax meyda haba yaraatee taasoo ah amarka taliyaha ciidanka badda aniguna aan soo xiganayo sababta loo joojiyo waxay tahay marka horeba inaysan ahayn goob wax lagu aaso oo ahayd degaan ciidan leeyahay masna dhibaatada kaloo timid ay tahay in afar laysugu dul taagayo lafa laga soo qodayo maalin walba godka la qodayo lafa laga soo bixiya sababahaas oo xagga diintana ku fiicnayn xagga degaankana ku fiicnayn awgeed ayaa loo joojiyay Muuse Cismaan Abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed Muqdisho.